Alan Shearer oo magacaabay halka arin oo Manchester City dheertay Arsenal tartanka horyaalka Premier League iyo isku-aadka wareegga sidnamaadka tartanka FA Cup oo la soo saaray intaan gudaha galin ka hadalka warbixinadan waxa ka codsanaya inaad ku soo biirto bartida TikTok oo aad follow soo tiraado sidoo kale diris 3 jeer iyo ka badan aad taabato calaamada goob linki si uu dad badan u gaaro sidoo kale ku soo biir barahiga kale ee Facebook iyo YouTube waad ku mahadsan tahay la socodkaaga ila jaanqaadkaaga markasta mahadsanid halyeeyga Premier League ee Alan Shearer ayaa sheegay halka arin oo Manchester City dheertay Arsenal tartanka horyaalka Premier League Arsenal waa koox toddobaad heshay natiijo fiican laakiin toddobaadka xiga aad u maleynaysid in ay fursadooda tartanka horyaalku ay dhimatay laakiin Manchester City muddo dheer ayay joogeen heerka ugu sareeya mana barbardhigi kartid Arsenal xitaa marka aynan si fiican u ciyaareen Manchester City ma qalqasho marka aynan si fiican u ciyaareen sidii ku dhacday Arsenal xiliyaareedkii hore sidaas daraadeed waxa ay dareemayaan cadaadis wixii dhacay xiliyaareedkii hore Manchester City way xamili kartaa cadaadiska laakiin Arsenal ma awoodo arintaasi waana halka arin oo ay Manchester City dheertay Arsenal iyo hadalkiisa ku soo gabagabeeyay halyeeyga Premier League Alan Shearer dhanka kale waxa la soo saaray isku-aadka wareegga sidnamaadka tartanka xiisaha badan ee FA Cup iyadoo kulamadii afaraad ee tartankaasi xalay la soo ciyaaray isku-aadka ay ka soo baxeen kulamo xiiso leh iyadoo ay kooxo waaweyn ee isku beegmeen kooxda Manchester United ayaa sidoo kale iyaduna la ciyaari doonta Liverpool kulanka ugu xiisaha badan wareegga sidnamaadka tartanka FA Cup dhinaca kale Chelsea waxay la ciyaari doontaa Leicester City iyadoo Blues ay doonayso inay iska xaadiriso finalaha tartanka xiliyaareedkan naadiga Wolverhampton Wanderers oo xalay adkaatay ayaa iyaduna waxay ku beegmatay naadiga Coventry City Manchester City ayaa sidoo kale la ciyaari doonta naadiga Newcastle United waana kulan kale oo aad u xiiso badan ka oo laga daawan doono isku-aadka tartanka FA Cup xiliyaareedkan kooxahan 8 ayaana sidaas iskugu beegmay iyadoo kulamadan la ciyaari doono bisha March ee soo socota